waxaan ka hadli doonaa aktarka caanka taariikhda nololkiisa Ranbir Kapoor. waa actor, waana producer, waana businessman ama ganacsade. naanistiisu waxaa lagu magacaabaa Dambu ama Gangulu. wuxuu dhawaan guursaday atriishada caanka Alia Bhatt ee maslaxa Hindiya ku haysata awood aad iyo aad u leh kuna leh saameyn. Alia Bhatt hadda aturaha nolol maalmeedkiisa ama soo ku dhashay dib u laabano wuxuu dhashay 28 September 1982 wuxuu ku dhashay Mumbai, Maharashtra. da'diisa hadda waxay jirtaa 40 sano. dhererkiisu waa 6 feet, culeyskiisu waa 78 kilogram. iskuulkiisu uu horeeyay waa Mumbai Scottish School isla Mumbai gudaha ku yaala. wuxuuna dhigtay college lagu magacaabo College of Commercial and Science of Mumbai gudaheeda ku yaalay. sanada kadib waxaa loo diray Mareykanka iskuul sida uu soo barto sida actor loo noqon lahaa ama film jelista. wuxuu la shaqeeyay shirkad ku taalo isla Mareykanka gudaheeda. sanada kadib wuxuu go'aansaday aturaha inuu noqdo actor. diintiisu waa Hinduusan ayuu haystaa. riyada uu ku riyoon jiray mustaqbalka inuu noqdo waa ciyaaryahan, laakiin wuu noqon waayay. way ku fashilantay riyadaas. filimkiisa uu horeeyay wuxuu ahaa filim oo soo saaray 2007 waxaa lagu magacaabay Sawaria. filimkaasoo qayb aad iyo aad u weyn ka soo saaray. 2007 wuxuu la keenay atriishada caanka ah ee lagu magacaabo Katrina Kaif. filimkaasoo aad iyo aad superhero u noqday oo dadka dhammaantood ee la dhacay filimkaasi ama ay ka heleen dhammaan dadkii daawaday. 2008 wuxuu ku guuleystay Best Male Debut ayuu ku guuleystay. Sawaria 2013 wuxuu ku guuleystay Best Actor Award ayuu ku guuleystay Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor wuxuu ka soo jeedaa reerka caanka ah reer Kapoor oo qarni ku dhawaad ama qarniyo haystay ku dhawaad qarniyo Ahmed Bollywood ka haystay. awowgiisa oo la magacaabo Raj Kapoor oo ahaan jiray actor asmigiisa markii la isku daro waxaa la Ranbir Raj Kapoor. riyadiisu ku riyoon jiray iraantiisu u rumoongaysay, balse hadda wuxuu leeyahay koox ka ciyaarto Hindiya. kooxaas lagu magacaabo Mumbai of City lagu magacaabo oo caasimad laba Hindiya ayuu u bixiyay kooxiisa ku magac daray aturaha. inuu jilay noqdo waxaa ka caawiyay aabihiisa oo lagu magacaabo Raj Kapoor iyo nin lagu magacaabo Sanjay oo ah producer film soo saara. Ranbir Kapoor filimka ugu dhaqaalaha badan ama superhero ka noqdo oo soo saaray waa taariikhdu ka sameeyay actorka caanka ah Sanjay Dutt. filimkaas lagu magacaabo Sanju oo soo saaray 200 oo karoor. familka aturaha dawmaano abis waa Rishi Kapoor, hooyadiis waxaa lagu magacaabaa Anita Singh oo atriisha ah. awowgiis waa Raj Kapoor oo isla actor ah. aydiis waa Rashina Kapoor. walaashiis waa Radhima Kapoor Sahan. xaaskiisa waa Alia Bhatt eedna atriisha caan ah. isbarteen 2007 xiriirkana soo dhaxmaray isguursadeen 2022.